waqti xaadirkan waxaa aad loo hadalhayaa khasaaraha maraykanka soo gaaray saacadihii lasoo dhaafay saldhigyada militari ee la bartilmaameysaday iyo diyaaradaha dagaalka ee maraykanka laga soo riday. dalka kuwait waxa uu xaqiijiyay 2 ka mid a diyaaradaha dagaalka ee maraykanka nooca F-16 in la soo riday inta dagaalka uu socdo. khasaaruhu intaasoo uu ka badan yahay. maraykanka waxaa lagu waramayaa khasaare xooggan inuu soo gaaray iyada oo dowladda maraykanka iyo qobaradaba ay leeyihiin dagaalkii faraha ayuu ka baxay. dhammaan xisaabaadkii la isku dhifsaday xisaabaad aan ahayn ayaana soo baxaya. hadda wadahadallada dowladda Iiraan way diidan tahay. dadaallo xooggan ayaa soconaya oo la doonayo in dagaalka lagu soo gabagabeeyo. dowladaha khaliijkana waxay walaac xooggan ka muujinayaan khasaaraha maaliyadeed ee soo gaaray waqti xaadirkan. qobarada qaar waxay aaminsan yihiin in Iiraan weli aysan adeegsan hubkii rasmiga ahaa, iyadoo marxaladda saddexaad ay la sugayaan. marxaladda koowaad ilaa iminka Iiraan waxaa la sheegay inay adeegsato diyaarado daroonisa iyo gantaallo aan sidaasi u awood badnayn oo lagu garaacay deegaano kala duwan. marxaladda labaadna waxay ahayd in dhanka badda dagaal la isla aaday, sidoo kalena la bartilmaameysaday dowladaha khaliijka ama dariska si dagaalka ay qayb kaga noqdaan ama xalka ay qayb ay kaga noqdaan. qaar ka mid a gantaalada awoodooda ay sarreysa ayaa marxaladda labaad qayb ka ahaa oo xalay la adeegsaday laguna garaacay magaalooyin ka tirsan Israa'iil oo ilaa iyo deegaanada ay gacanta ay ku hayaan Israa'iiliyiinta qayb ka ah oo dhulka Falastiiniyiinta ah. marxaladda saddexaadna waxay qobarada aaminsan yihiin inay Iiraan adeegsan karto gantaallo aan weli la adeegsan oo awooddu ay aad u sarreyso. laakiin wax walba waqtiga ayaa inoo sheegi doona. telefishinka Al Jazeera waxa uu daabacay warbixin cinwaan looga dhigay Iiraan ma waxay bedeshay istiraatiijiyadii dagaalka, iyadoo la eegay dhammaan dhaqdhaqaaqyadii Iiraan ay samaysay saacadihii lasoo dhaafay. Iiraan waxaa la sheegay marka inay bedeshay istiraatiijiyadda dagaalka ee ka dhanka Washington iyo Tel Aviv, waxaana isku daysaa Iiraan inay ballaariso dagaalka oo gobolka oo idin lagu ballaariyo. warbixinta waxaa lagu sheegay marka in la saadaalinayo Iiraan in laga yaabo inay dagaalka ku fidiso jihooyin kale oo cusub, jabhado kalena ay kasoo qayb galaan. hadda Lubnaan ayaa saaka kusoo biirtay, ilaa iminka xuutiyiinta lama hayo, waxaana suuragal ah weli inay sugayaan amarka kama dambaysta ah. dhanka iyo Ciraaq dhaqdhaqaaqyo ayaa ka soconaya oo xoogaga Ciraaq ku sugan waxay bartilmaameysadeen saldhigyada Maraykanka. sidoo kalena Iiraan ujeedada kale ay leedahay waxay tahay in saldhigyada Maraykanka ee ka baxsan khaliijka iyo Israa'iil xitaa in la bartilmaameysado, taasoo ka dhigan in Turkiga iyo dhinaca kale Azerbaijan la aadi karo. dhanka Turkigana saldhigga Incirlik lagu magacaabo oo Maraykanka u adeegsado waxaa maanta la baahinaya macluumaad ku saabsan in weerar lagu qaaday, inkastoo warbaahinta Turkiga iyo qaybaha kala duwan ilaa iminka aysan ka hadlin. laakiin Twitterka ayaa waxaa aad loo wareejinayaa muuqaal muujinaya wariye Turki ah oo telefishinka TRT habeer ka tirsan, kaas oo sheegaya in gantaalo badan ay dul marayaan. laakiin waxay dadku u badiyeen suuragalnimada inuu dalalka khaliijka mid ka mid a wariyahaasi uu joogo. haddii macluumaad uu kasoo kordho saldhigaasi waan kula wadaagi doonaa. sidoo kale waxaa qayb ka abaalyiri inay aad kaga fekerayaan inay ka yaraadaan gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay adeegsanayaan. waxaana la sheegay howlgalka dhanka badda inay xoogga ay saareen, si gaar ahaaneed badda Cumaan iyo khaliijka, waxaanay beegsanayaan danaha Maraykanka. sidoo kale diyaarado daroonis ay aad u isticmaalayaan oo ah kuwa inta badan lagu bartilmaameysanayo dowladaha khaliijka. dhanka iyo Ciraaq markaad eegto gantaallo iyo diyaarado daroonis ayaa lagu weeraray garoon diyaaradeedka magaalada Erbil oo gobolka Kurdistan, halkaasoo ciidamo Amerikaan ah ay ku sugayeen. wakaaladda wararka ee Reuters ayaana laga soo xigtay 3 daroon inay dul mareen garoon diyaaradeedka Erbil. Maraykanka marka walaac xooggan ayuu muujinayaa. war ka soo baxay Washington waxaa lagu sheegay inay soo baxayaan in saraakiil dowladda Maraykanka ka tirsan ay ka walaacsan yihiin in dagaalka uu sii fido, oo ah qorshaha wejiga koowaad inaan lagu xisaabtamin in dagaalka uu fidi karayo, iyo sidoo kale in dagaalka faraha uu ka baxo oo uu gaaro xaalad aan la xakameyn karin. taasi marka waxay keentay cabsi weyn in la dareemo oo ah inuu dagaalka dheeraan karayo, sidoo kalena cadaadis weyn uu ku imaan karayo kaydka hubka dowladda Maraykanka ee dhanka gobolka, gaar ahaana gantaalada difaaca ka shaqeynayo. kuwa weerarka marka laga yimaado kuwa difaaco badan ayaa loo baahan yahay si danaha Maraykanka ee gobolka loo difaaco. Iiraan marka waxaa la sheegay istiraatiijiyadda dagaalka inay wax ka bedelayso, iyagoo doonaya inay daaliyaan Maraykanka iyo Israa'iil, dagaalkana uu noqdo mid waqti dheer qaata, kaasoo keeni karaya in marxalad kale loo gudbo. isbeddelka istiraatiijiyadda ee dowladda Iiraan ay samaysay xalay ayaa markii ugu horeysay la arkay kadib markii gantaallo lala yaabay oo cusub ay ku soo biireen dagaalka, loona adeegsaday in lagu bartilmaameysado gudaha Israa'iil. inta ugu badanna gantaaladaasi Iiraan dhanka Israa'iil ayay ku weeraraysaa. taas marka waxay keentay Maraykanka inuu soo kiciyo diyaaradihiisa dagaalka ee B2 loo yaqaano, kuwaasoo duqeymo culus fulin karaya.
diyaaradahan maxay tahay marka sababta loo soo kiciyey? sababta waxaa lagu sheegay inay tahay in Israa'iil ay ku faantay xarumihii gantaalada ee Iiraan in la burburiyey, laakiin markii dambe xalay Iiraan ay isticmaashay hub cusub. waxaa loo baahday marka si xarumahaasi gantaalada laga soo tuurayo iyo xarumaha gantaalada balaastiga si loo baabi'iyo in diyaaradan la soo kiciyo. in ka badan 11 saacadood ayay hawada ku soo jirtay. markii ay hawada Iiraan soo gashayna duqeymahaasi culus ayay xalay fulisay sida ay falanqeeyaasha iyo warbaahintaba baahinayso. taasi marka waxay ka dhigan tahay in marxalad kale la isla aaday. warbaahintu waxay sheegtay marka diyaaradan inay bartilmaameysatay ilaa iyo dhowr xarumood oo ku yaala gudaha magaalada Tehran oo caasimada dalka Iiraan. xarunta taliska dhexe ee Mareykankana waxaa lagu waramayaa inay kulamo degdeg ay leeyihiin iyagoo ka arrinsanaya khasaaraha soo gaaray ciidamada Mareykanka oo ilaa iminka waxaa la xaqiijiyay 5 ilaa 8 ruux inay ku geeriyoodeen iska horimaadyada sida lagu qiray qoraal ka soo baxay xarunta taliska dhexe ee Mareykanka ee CENTCOM loo yaqaano. sidaas oo kale diyaaradaha lagu soo riday gudaha dalka Kuwait marka laga yimaado saldhigyada Mareykanka ee Bahrain iyo dalal kale oo gobolka ku yaala ayaa lagu weeraray saaka diyaarada drones ah oo maanta mawjado kale oo drones ah ayaa lagu bartilmaameysaday qaliijka dawlado badan oo kamid ah oo Sacuudiga xitaa uu kamid yahay oo xarumihii shidaalka la beegsaday. in la soo kiciyo diyaaradda dagaal ee B2 waxaa lagu waramayaa sidoo kale inay qayb ka tahay qorshaha la doonayo in lagu soo gabagabeeyo istaraatiijiyadda dawladda Iiraan iyo in laga hortago weli diyaaradaha iyo gantaalada aysan adeegsan inay ku weerarto gudaha Israa'iil. qabiirada dhanka militariga waxay qabaan aragti ah marka haddii 72 saac oo soo socota aan xal la helin wax walba isbedeli karayaan. qabiir militari oo Nidaal Abu Zayd lagu magacaabo ayaa telefishinka Al Jazeera la hadlay. wuxuu yiri xiisadda hadda marka aad eegto heerkii hoose way ka soo gudubtay, heer dhexdhexaad ayay maraysaa, heer sare haddii ay gaartana marxaladdu gabi ahaanba way isbedeli doontaa. wuxuu yiri mar kasta oo dagaal militari ama howlgal militari la qiimeynayo guud ahaan waa in 3 marxaladood laga eegaa. heerka hoose oo bilowga howlgalka ah, heerka dhexe oo yacni hadda 3 maalin waxyaabaha soconaya oo kale markaad eegto waa heer dhexe iyo heerkaas ugu sarreeya oo ah hubka ugu dambeeya xilliga la adeegsanayo. wuxuu tilmaamay marka in diyaaradda dagaal ee B2 ay qayb ka noqoto diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka uu adeegsanayo inay qayb ka tahay isbedelka istaraatiijiyadda Mareykanka iyo in uu doonayo inuu gantaalada GPU loo yaqaano uu ku burburiyo xarumaha dhulka hoose lana bartilmaameysado goob kasta ama saldhig kasta oo gantaalada balaastiga ee dawladda Iiraan ay yaalaan. maxaa yeelay sababta hadda dagaalka loo gala xitaa nuclear ma ahan, waa gantaalada balaastiga ee dawladda Iiraan in la baabi'iyo. sababtoo ah ilaa iminka xarumihii nuclearka ee dawladda Iiraan wax gantaala laguma weerarin oo lama bartilmaameysan muddo 72 saac oo dagaalka uu socdo. falanqeeyaasha marka waxay qabaan in Iiraan markii horeba la qiyaanay oo intii wada hadalka uu socday dawladda Cumaan loo dhiibay fariin ahayd Iiraan waxay ka tanaasulaysaa barnaamijka nuclearka, sidaa daraadeedna jawaab Mareykanka laga sugayay. inta jawaabta la sugayna marnaba la isma lahayn dagaalkan ayaa imaanaya. kadibna jawaabtii intii lagu mashquulsanaa ama jawaabtii intay Iiraaniyiinta kor u hayeen oo ay sugayeen ayaa la gaaday oo duqeyntaani ay dhacday. marka iyagana waxay la soo baxeen aragti ah in 3 marxaladood la marsiiyo dagaalka. marxaladda koowaad waxay tahay in Israa'iil iyo deegaanada ku hareeraysan la bartilmaameysado. marxaladda labaad in gacanka Hormuz lagu dagaalamo oo dhanka badda ah si ay Iiraan hubkeeda iyo kaydkeeda u ilaashato oo droniska iyo waxyaabaha la midka loo adeegsado. iyo tan saddexaad oo dagaalka in lagu soo jiido gobolka oo idil. qabiirka dhanka military ee telefishinka Al Jazeera la hadlay marka wuxuu yiri 72 saac ee soo socota waxay noqon doonaan kuwa muhiim ah maadaama ay go'aamin karayaan sida Mareykanka u wajihi doono faylka dawladda Iiraan oo natiijadii aan la sugayn mid aan ahayn maadaama ay soo baxday maxaa iska bedeli doona. sidoo kalena heerka dagaalka uu gaari karayo ayuu yiri ay muhiim u tahay 72 saacadood. ma marxaladda dhexe ayaa lagu ekeyn doonaa mise marxaladda ugu sarreysa ayaa loo wada gudbi doonaa. Washington waxay dib u qiimeyn ku sameynaysaa buu yiri qorshihii dagaalka. madaxweyne Trump wuxuu ku qasban yahay inuu ka fakaro dagaalkan inuusan noqon waqti dheer oo Trump wuxuu doonayay waqti gaaban haddana natiijo degdeg ah in la helo, laakiin sheekadu sidaa ma noqon. sidoo kale khubarada qaar waxay aaminsan yihiin suuragalnimada agabka teknoolojiyadeed ee jiilka 6 inuu Mareykanka adeegsan karo sida weerarada electromagnetiga ah, diyaaradaha fog ee meelaha fogfog wax ka duqeyn karo, teknoolojiyadda casriga iyo adeegsiga sirdoonka macmalka. marxaladda xigta markaba waxay keeni doontaa in loo gudbo dagaalka hubka nuclearka iyo sidii hubkaasi loo bartilmaameysan lahaa. maxaa sababi karaya dawladda Iiraan inay guuleysato? waa maxay labada arin ee sababta u noqon karaya Iiraan inay dagaalka ku guuleysato waqti xaadirkana muhiimka u ah? waxa sharaxaya falanqeeye Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo ku sugan dalka Canada
oo la hadlayay weriye dulyadayn inkastoo waqti aad u dheer uu sharaxaad dheer bixiyey oo aad u faahfaahsan oon kugula talin lahaa xitaa inaad daawato si aad macluumaad badan aad u ogaato haddana aan qaybtan ka ogaano sheekh cabdiraxmaan bashiir iyo jawaabta uu ka bixiyey labada arrin ee iiraan guusha u keeni karta. iiraan hadafka ay leedahay iyadu waa maxay? nidaamku inuu ishaysto iyo inaynan jebin oo laga adkaan. okay, dagaalku kii 12 cisho ahaa istiraatiijiyadii laga lahaa lama gaadhin Soomaaliya, laakiin waa la daciifiyey dowladda. maantana 2 goor in ka badan baa la sii daciifin ama 3 goor. laakiin haddii iiraan ay ku guulaysato wayna wadaaye in ay ka baxdo in nidaamka la burburiyo, iyadoo waxa u tahay guul. in ay dagaalka adkaata mahaydo, in aanan nidaamkayga la burburin oo iiraan nidaamkaygu sii jiro, waxa u tahay iyada markaas guule u tahay. marka man yantasirti wuxuu yidhi tantasiru iiraan xiinamaa laa yanhazimu nidaamuha. nidaamkeeda haddii uusan burburin way guulaysatay. arrinta labaad wuxuu yidhi iiraan way guulaysatay haddii ay israa'iil u diido nolosha waa maxay? waa maanta maalintii 2-3 baa la galayaa ee dadka israa'iil ay ku jiraan hogog. wuu qofna dadku waxay sitaan baa lidhi xafaadaatul atfaalki iyo sitaan daybaro 3 malyan iyo badh baa dhulka hoos fadhida. saaka emergencyga dowladdii israa'iil waxaa la gashay emergency, waxaa la yidhi waxaan ku shiraynaa mobeelada sida iskula hadlayeen magaalada madaxweynaha wasaaraha signal baan ku shiraynaa. maxaa ka baqeen? waxaa dhacday magaalo la dhahdo xaafad la dhahdo beit shumays oo ku taala qudus iyaa lasoo tuuray madfac amba saaruukh dhulka hoostiisa taga. wuxuu ugu tagay dadkii malji'ii hoose ku jireen. 9 qof baa dhimatay, 12 qof baa dhaawac. soo ma garan? marka malji'ii hoos ahaa ee godadka la galay xataa waa lagu badbaadi lahaa. marka dowladdana meel ay ku shiraysay lama iclaamin, israa'iil waa la garaacay. marka istiraatiijiyaddii marka waxay keentay in la dhahdo ma shiri karnaba, isma arki karo. wala tajidanhum axrasa annaasi cala xayaat. okay, maxaa dhacay markaa? dowladda iiraan marka waxay ku guulaysatay sida uu yidhi Araghchi, wasiirka arrimaha dibadda, wuxuu yidhi way dhammaatay, waxaan nii diidaynaa hurdo, ma nasan doontaan, mana aamusi doono safaaraatul indaarka, alarmka qaylinaya digniinta sheegaya, warningka ma aamusayo. walidaalika xalay iyo habeen hore wuxuu garaacmay 90 jeer. hurdo waa tagtay Tel Aviv dhexdeeda. marka waxay ka dhigan tahay waan baabi'inay maxaa la dhahdaa sawaariikhdii iiraan iyo sawaariikhdan soo socota ee uu alarmka la qaylinaya, oo weliba istiraatiijiyadda iiraan way bedeshay, ma wada isticmaalayso hubkii oo dhan. walidaalika saaka waxaa kacay diyaaradii weyneed ee maraykanka B2 oo ka kacday xaggan maraykanka ka kacday Missouri. waxay soo garaacaysay meelaha hubka laga soo aayo oo israa'iil ay gaali weyday. hogga ay ku jiraan bay israa'iil gaali weyday. intay soo baxaan garaacan way ku noqonayaan. hogga qaar waxay sheegaan 500-600 mitir bay ka hooseysaa meeshii fadhiyaan, fog yahay. marka israa'iil ma haysato hubbi ku gaadho. marka ninkii istiraatiijiga ahaad akhrisay wuxuu leeyahay haddii ay nolol u diido israa'iiliyiinta لأن إسرائيل ما تحمل كرتو خسارة انت هلاك ما تحمل كرتو. مريكا waxay taageen dad fara badan. America أولا first America waxay taageen lacagtu maxay saaru socota inta leey iyadoo ma xambaari karayso amaanatay inta ay ka badan waliba doorashooyinkii midtermka soo dhow wayna istaagtay maxaan ku dhahdaa diyaaradihii wax ka baxay wax soo kale ma jiro. aylaad bay ka bixi jirtay oo u dhaxaysa Urdun iyadoo wadagaalku ku socda badi ma Xayfa badeedii ku socdaa. marka way xiran tahay dowladda Israa'iil. marka dowladda Israa'iil waa mutafawiq xagga hawada, way garaacaysaa, way leenaysaa madax badan saa sheegi doono, laakiinse yaa guulaysanaya. marka waxaa la eegi doonaa Maraykanka iyo Israa'iil waxay guulaysanayaan labada hadaf weeyeen markay gaadhaan oo ah in nidaamka la bedelo amba in nidaamka laga soo dhex saaro dad iyagu ay leeyihiin sidii maaragtay Venezuela gartay. Israa'iil Iiraan waxay guulaysanaysaa markuu nidaamku dhici waayo alla baro Soomaa ambase markay Israa'iil nasaweydo ay Israa'iil tiraahdo dagaalka la joojiyo sidii caadigeedii sida socota Iiraan ay ka tiraahdo Maraykanno hala bilaabo shakadii dagaalka la joojiyo. aad uu mahadsan yahay sheekh cabdiraxmaan bashiir. qaybaha kale haddii aan eegno
israel waxay ku hanjabaysaa weerar dhanka dhulka inay ka fulin doonto gudaha dalka lubnaan. duqeymo culus ayaa ilaa iminka lagu garaacay dalka lubnaan, gaar ahaan koonfurta dalkaasi. waxaa fariin hanjabaada loo diray naciim qaasim sida uu soo saaray wasiirka gaashaandhigga ee israel. wuxuu yidhi waan bartilmaamaysan doonaa naciim qaasim, wixii hadda ka dambeeyana bartilmaameed ayuu inoo yahay, maadaama isaga uu amray in dagaalka toos ay ugu soo biraan xisbillah. aan kula wadaago marka wararkii ugu dambeeyey. seeriga digniinta ayaa lagu waramayaa inuu isqabsaday magaalada caasimada oo ah dalka jordan. jordan waxaa la aaminsan yahay ama urdun waxaa la aaminsan yahay in saldhig weyn maraykanka uu ku leeyahay, hubkii ugu casrisanaana halkaasi la geeyey. dhawaaqa seeriga digniinta ayaa qaybo badan oo jordan ka mid ah laga maqlayaa. iiraan gantaalo badan ayaa hadda ku weerartay dhanka iyo israel oo halkaas ayay ku wajahan yihiin. sidaas oo kale seeriga digniinta ayaa talaaviib iyo magaalooyin badan oo israel ka mid ah isqabsaday. mascuud bazashkiyan madaxweynaha dowladda iiraanna waxa uu hadda la leeyahay kulamo deg deg ah sida la sheegay saraakiil dowladda iiraan ka tirsan. qiimaha gaaska wadamada qaaradda yurub ayaa 25% kor u kacay. sidoo kale waxaa lagu waramayaa in la bartilmaamaysaday xarumo waaweyn oo ciidamada ilaalada kacaanka ay ku lahaayeen deegaanada dhinaca xadka, sida wakaalada wararka ee iiraan ay baahisay. dowladda qatar waxay shaacay ka qaaday inay ka hortageen diyaarado daroonisa oo dhanka iiraan ka yimid. afhayeen wasaaradda arrimaha dibadda u hadlayna waxa uu sheegay ilaa iminka inaysan wixii hadda ka dambeeya indhool ka noqon karin oo indhaha aysan iska tiri karin duqeymaha iiraan ka imaanaya. taasima waxay ka dhigan tahay inay dagaalka kusoo biiri doonaan oo jawaab ay bixin doonaan. iiraan waxay qiranaysaa in qaar ka mid a ciidamada ilaalada kacaanka ay ku dhinteen dhinaca deegaanada xadka. war-saxaafadeed wadajir ah iyo dowladaha khaliijka jordan iyo sidoo kale maraykanka ay soo saareen, waxaana lagu cambaareeyay iiraan iyo weerarada ay la eeganayso dalal badan oo khaliijka ah. war-saxaafadeedka waxaa qayb ka ah qatar, sacuudiga, baxrayn, jordan, kuwait, maraykanka, imaaraadka carabta iyo sidoo kale dowladaha gobolka. waxay sheegeen inay aad u cambaareynayaan. tani markaba waxay ka dhigan tahay inay go-aan midaysan qaadan doonaan oo si toosa dagaalka ugu soo biiri doonaan. haddii dagaalkay kusoo biiraanna ma waxaa inoo bilaabanaya dagaalkii saddexaad ee dunida. dowladaha shiinaha iyo ruushka oo saaxiib dhow la ahaa dowladda iiraan ilaa iminka war lagama hayo. marka laga yimaado war-saxaafadeedii ay soo saareen oo dagaalka ay ku cambaareeyeen, ma taageero dhanka farsamada iyo tiknolojiyadda iyo sirdoonka ayay iiraan siinayaan mise dagaalka ayay toos ugu soo biiri karaan? waxyaabaha soo kordhoon kula wadaagi doona. waad mahadsan tahay.